Somaliland waxay ku abaal dhacday gurmadkii jiilaalka ee reer Koonfur Galbeed ay dadkeeda shabeellooyinka ku soo dhaweeyeen 1974. Soomaaliya waxa ku habsatay abaartii dabadheer, kacaankii xukunka xoogayna wuxuu u istaagay samata bixinta dadka iyo xoolaha oo tarab u dhimanayay. Muuqani waa dharaara xasuustood, wuxuu muujinayaa sooyaalka ilbaxnimada iyo waxwada qabsiga ummadda Soomaaliyeed. 4 milyan oo qof oo deegaan ku ahaa gobollada waqooyi galbeed ee maanta la baxay Somaliland oo lagu daray Puntland iyo Galmudug ayaa xilliga qarka u fuulay inay macaluul u geeriyoodaan. Barkood waxay la ildarraayeen nafaqa darro iyo cudurro soo ritay. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa booqasho ku kala bixiyay ilaa 8 deegaan oo ka mid ahaa gobolladii abaaruhu ku dhufteen. Wuxuu ku bilaabay Beer iyo Caynabo oo ka mid ahaa gobolka Togdheer. Dharaartii xigtay wuxuu ka degay Banka Caydha oo ku yaal buuraha isku qoofalan ee degmada Buraan ee gobolka Sanaag. Haddana wuxuu isu dhaafay Bari iyo Nugaal oo qayladhaan ka taagneyd, isagoo socdaalkiisa ku soo gabagabeeyay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Gargaarkii ugu horreeyay ayaa durba la iba furay, iyadoo la yagleelay xerooyin dadka lagu baananayo. Dowladdii militariga oo kaashanaysa Midowgii Soofiyeedka waxay qaybisay daawo, cunto iyo biyo. Abaarihii Hawaara, Hargacuna ilaa iyo Kartoomaley Soomaaliya ma soo marin abaar ka daran abaartii dabadheer. Waxay ku timi 3 xilli roobaad oo raxmadda Alle aysan Soomaaliya ka hoorin, taasoo keentay in xooluhu boqol u bakhtiyaan kolkii loo waayay baad iyo biyo. Kacaanku wuxuu garowsaday inaan biyo iyo badar lala gaarin dadka abaaruhu halakeeyeen, balse la beeqaamiyo khayraadka dalka. Dadkii reer miyiga ahaa qaarkood waxa loo diyaariyey in loo raro magaalo xeebeedyada si ay kalluumaysato u noqdaan. Maalmo kadib gawaaridii ka soo shiraacday gobollada waqooyi ayaa lagu furay Cadale, Baraawe iyo Ayl. Durbadiiba waxa reer miyigii loo carbiyey sida loo dabaasho iyo habka shabaagta loo daadsado, maadaama aysan weligood xoolo bad ku jira hunguri ka gelin. 2 bilood kadib, reer miyigii waxay noqdeen baddhac iyo badmaax taf ku ah kalluumaysiga, iyagoo u riyaaqay hilibka yuumbiga, gaxashka, sumaanta iyo aargoosatada oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee shabaqooda ku soo dhaca. Jaalisiyaad ayaa amar ku bixiyey in reer miyiga cayroobay loo soo daabulo inta u dhaxaysa dhulka labada webi ee ku wanaagsan tabcashada beeraha. Ardaydii ugu horreeyay ee loo xulay ololaha horumarinta reer miyiga ee Far-Soomaaliga ayaa hormuud ka noqday geediga reer guuraaga koonfurta loogu soo qaaday. 700 oo gawaarida xamuulka ayaa soo qaaday reer guuraagii oo aan neef xoolo wadan, waxaana la geeyey Kuntuwaarey, Dajuuma iyo Sablaale. Si qalbi furan ayayna dadka deegaanku u soo dhaweeyeen. Madrasatul Macallimul Qur'aan, meel kastoodba adduunka aad ka joogto dushiisa minankaaga dhexdiisa, adoon meelna u dhaafin online maado ku qaado baro maanta duruusta. Mabda'eena islaamka Qur'aanka ka meerso axaadiista ka miiso, siiradii nabigeena sallallahu alayhi wasallam siyar maanka ku kaydso. Madrasatul Macallimul Qur'aan waa malcamad online mahuraan aan la dhaafin midka aan ka warhayni. Malaa waa maqfuul ee maanka ha u furo haatan. Meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogto si online ugu biir mareegta xifdinta Qur'aanka Kariimka. Madrasatul Macallimul Qur'aan oo kala xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda. Kacaanku reer guuraaga waxa uu ku wareejiyey 22,000 oo hektar oo dhul beereeda, waxaana la baray dalagyada ugu habboon ee ka bixi kara webiga hareerihiisa, qiimahooda iyo sida ay u kala nafc badan yihiin. Reer guuraagii degdeg ayay ku aaseen iniintii loo qaybiyey, waxayna beerahoodii ku waraabsadeen biyaha webiga, iyagoo muddo kadibna gurtay mirihii ay beerteen, taasoo ay ku ilaaween rafaadkii abaarta dabadheer ay baday. Gurmadkii abaartii dabadheer waxa uu keenay inay isdhex galaan oo dhaqan iyo dheefba wadaagaan dadkii laga kala keenay Bari iyo Galbeed. Wax soo saarka beeraleyda iyo kalluumaysatada reer miyiga ahi waxa uu kor u qaaday dakhliga dawladda, markaasoo dalku uu ku tallaabsaday horumar dhaqaale oo gaarsiiyey inuu iskaga filaado dhanka cuntada. Reer Koonfur Galbeed waxay u qalmeen in lagu abaal mariyo gacantii gobonimada lahayd ee ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed, balse 47 sano kadib, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku ciqaabay abaalkoodii in loo gudo daaye. Amarkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu laascanood kaga soo masaafuriyey dadka Koonfur Galbeed ayaa noqday isirsoocii iyo faquuqii ugu liitay oo lagula kaco dad birimageedo ah.